maxamedow hadda waxaan joogaa dibadda hoteelka xayaat oo halkii uu weerarku ka bilowday habeennimadii jimcaha ee ay sabtidu soo galaysay hoteelka iyo agagaarkiisaba waxaa ka muuqda burbur xoog leh inkastoo hadda aad moodday inay xaaladdu si caadiya ku soo laabanayso oo dadka qaarkii loo ogolaaday in ay halkan yimaadaan waxaa ii muuqda shaqaalaha shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa korontada oo halkan raba inay dayactir ka sameeyaan waayaradii korontada iyo kuwii taleefanada ee ku go'ay qaraxyadii iyo rasaastii faraha badnayd ee dhowr iyo 30 saacadood ee halkan ka socotay khasaarad baaxad leh ayaa halkan ka dhacay goorsii horeysayna taliyaha booliska generaal xijaar waxa uu sheegay in hawlgalkii halkaasi ka socday la soo gabagabeeyay xalay waqti dambe waxa uu sheegay in dad ka badan 100 qof la soo badbaadiyay laakiin wasiirka caafimaadka dr cali xaaji oo isna hadlay waxa uu sheegay in ay halkan ku dhinteen inta la xaqiijiyo isbitaalada la geeyay meydadka 21 qof waxa uu sheegay in dhaawaca dad ka badan 100 qof iyana isbitaalada la gaarsiiyay xogta wasaaradda caafimaadka ay ka soo xaqiijisay xarumaha caafimaadka ayaa ka kooban dhaawacyo iyo dhimasho soo gaaray hospitaalada muddadii la soo dhaafay ee weeraradu socdeen tirada guud ee geerida ayaa gaaraysa 21 ruux ilaa iyo hadda oo ku salaysan xogta laga keenay xarumaha caafimaadka waxaa sidoo kale jiri kara meydad ay aasteen eheladooda oo aanan la geynin isbitaalada tirada guud ee dhaawaca ayay wasaaraddu ka helayso xarumaha caafimaadka ayaa ah 117 qof oo dhaawac ah in la geeyo xarumaha caafimaadka ayaa soo gaartay wasaaradda caafimaadka 15 ka mid ah 117daasi xaaladoodu waa culus tahay oo waa dhaawacyo adag kaasi wuxuu ahaa Soomaaliya Dr. Cali Xaaji oo ka hadlaya khasaaraha dadkii halkaasi wax ku noqday taliyaha booliska generaal xijaar oo isna goorsii horeysay hadlaya waxa uu sheegay in ka badan qof laga soo badbaadiyay intii howlgalku socday dhowr iyo 30 saacadood waxa ciidamada ammaanku ay nadiifin ka wadaan hadda hoteelkii weerarku ka bilowday habeennimadii jimcaha muddadii howlgalku socday hay'adaha amnigu waxay xoog saareen badbaadinta iyo badqabka muwaadiniintii goobta ku sugnaa waxayna ku guulaysteen badbaadinta dad ka badan 106 oo ay ka mid yihiin carruur iyo haween waxaa naxdin leh in meesha ay ku nafwaayeen dad shacab ah oo birmageyda ah tirada dadka ay wax ku gaareen goobtaas waxaa si faahfaahsan loola wadaagi doona wasaaradda caafimaadka hay-adaha amniga ahaan waxaan xaqiijinaynaa in khasaaraha nafeed ee uu ku beegnaa saacadihii hore ee weerarkaas ku dhacay intaa kadibna ciidamada amnigu waxay ku howlanaayeen inay shacabka ka soo badbaadiyaan iyaga oo dadka qof iyo qolqol uga soo saarayay hoteelka waxaa hadda meeshii ka socda nadiifin iyo muxuu ahaa xaaqid waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa inta la xaaqayo nadiifinayo inay u dulqaataan kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya generaal Cabdi Xijaar oo goorsii horeysay meel aan ka fogeen halka weerarku ka dhacay wariyaasha kula hadlayay hadda on hoteelka dibadiisa jooga gudihiisa looma ogola inay u gudbaan dadka caadiga ah iyo wariyaasha gawaarida dagaalka ayaa dhinac kasta ka yaala ciidamada ammaanka ayaa taagan dabcan waxaa la filayaa in sidoo kale ay halkani ka hadlaan xubno ka tirsan dawladda dadka kale bulshada halkan yimid ganacsiyadoodii iyo dukaamadoodii ayay dib u eegayaan burburkii gaaray iyo khasaaraha halkan ka dhacay maxamed